الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شركة جرائد ما أنت تسكوكين يري حدوني دولار ريموت كلا هردو وحرمها سكمل وبدن كوي كسابسين سناك بري يسناك قبل كسناك بقى وحقنا وأن أرمى بدن أو إسكت بدع يجران marka hore maalmahan iyo maalmo dhaweyd wax la sheegay ciidan ka goostay meesha sanaag bari dadku haddaanay midalan ana xogaal u ahayn waxa laga yaabaa waxaan ciidan badan goosanaya maxay yihiin la yiraahdo hadoon horta dadka inay ka dhaadhiciyo waxani waxay yihiin waxa gobolada ka qaraqamaysan ciidamo badan oo qaarkood 25 sano qaramaysnaayeen oo degaankoogu fadhiya wax hawlo oo ay qaranka u qabtaan aanay jirin hawlgal ma fuliyaan meeshooda wax kuma qabtaan haddana waxaanu siinaa mushaar inagoo eegana waxyaabo badan weli intaa ay joogeen wax hawla وهالقلادة كسعودة ودنك وحبا كما يفولين حتى تي دورشون كي وحنا في الخماي قبل ونهلكوغو بينكم مصروفا مد waxay ku dhacday waxaan noqonay wareen baran oo degaankoogi ahayd inay tagaan baan ku amaray waxay noo sheegeen iyaga kuwa Puntland inuu heshiis ka dhaxeeyay oo ayna isku weerarin ay ahayd marka qoladii kale Puntland bay kaga baxday sida aawadeed annaguna aanan weerari karayn waanu ka tagnaa bayda ciidanka ma raacin badiyaa laakiin waxa tagay saraakiishii hogaaminaysa waxa halka ka muuqatay muddadayna la joogeen bakhayaamo inay ku socdeen qarankana uma baahna lacag bilaash oo la bixiyo qofka lacagta la siinaya waa inuu wixii wax lagu siiyay in leega ku qabta sida ciidamada kale jiidaha jooga ay u shaqeeyaan waa inay u shaqeeyaan ciidamada kale meelaha joogaana ninku hadaan waajibkii fulin karayn inuu lacag qaato maaha inuu si joogana maaha waxaan leeyahay waa la saayiray intaas oo dhan baan ku eegana waa la saayiray kuwa tagay kuwa kalaba ma baahna qaranku inay iska tagaan ba wanaagsan waan ku faraxsanahay inay iska tageen maxay waxay qaranku waxaan qarashayn oo ula fadhiyaan ma jiro lacag bilaasha oo dadka oo cashuurta dadka laga ururiyay oo bilaash ku qaataan ayaa ayuun bay qaataan waxay nooga soo noqday inoo fuliyaan ma jiro marka dadka caynkaas oo kale inay ka tagaan oo markii horeba odayaal yidhaaheen noo qarameeya laguma sii jiri karo waxaan leeyahay mahadsan kuwa naga tagay kuwa kale ee ka dambeeyay ee aan waxba taraynay iska tagaan ba wanaagsan oo loo baahna nim aan waxba qabanaynin inuu lacag umadu leedahay oo cashuur laga qaaday inuu qaato maaha sida aawadeed dadku haddaanay fahamsanayn ciidankan hadda naga tagay oo ciidan wax markii hore waxba inoogu tarayn waxaan kharash ahayn mooyaane wax faa'iido inoo qabanayaan jirin mar haday caynka tahay kuwa iyo kuwa lamid ah wax iska tagaan amba qaranka u shaqeeyaan لكن عدي المينو قفكو هدو وناغو كو جوغيو وان قادا كرا لكن قفكو ديغرور كو ردايا oo kharash ka qaadanaya hadana wax kala ku daro hada ruux la qaadan kara ma meelahay tagayaan Soomaaliland baa ugu nafaqo badan nin kastoo Soomaaliland ka tagana uu ku soo noqdo marka looma baahnaan leh
kuwa tegey looma baahna kuwa kale aan waxba qabanaa amba waanu eri amba iyagaa iska tegi haddii kala qaranka u shaqayni laakiin si la isku dul noolaan maayo mar dambe isku dul noolaasho dambe ma jiraayo taasi waa taa qofka amba inu cashuur bixiya amba inu waajibaad qabtaa weeye laakiin qof aan labadiiba qabanayni haddana dadkaa ku dul noolaanaya meesha ma suurtoobayso taasi waa taa ta kale ee ku saabsan ee sanaag hadda jirtay caara arrintiisa ku saabsan caara wuxuu ahaa korneyl ka tirsan ciidamada waana ogyihiin ciidamadu way yaqaanaa in dhib badan oo dhibaatooyin badan sanaag ka geystay buu ahaa halkan miiskan saraakiisha joogtaan baa ku xidhnaa isagoo 4 nin loo haystay dilkood rag baa ololeeye oo ninkaa la sii daayaa layidhi weli kiiskiisii sidii buu yaallaa ee maxkamadda waxa yartay isagoo joogaa haddana baanduulo laga dhigay halkaa markuu tegayna uu muddo joogayna waa ka dhacay mushaarkii ciidanka ee dhexdoo fadhiista haddana waa ka tegay puntland dadka uu gacantiisa ku dilayna ee gobolkaasana ka tirna 10 qof kama yara qaar hadday ciidan tahay iyo hadday tahay shicib waxaan arkaya dad uu doodaya aba sanaag kula kulmay ninkaasi la iska daayay waa geesi goor buu noqday nin qaran nin ummad islaam xasuuqay inuu geesi noqdo in la qisaasa bay ahayd si isagana dembiga ilaahay uga dhaafo oo dadkuu laayay loo qisaasa bay ahayd laakiin in loo qaato geesi anu waxaan u arkaa ana shakhsiyan inay tahay dembi ka u doodayaana hadduu wax u tarayo dembiga uu sameeyey ha laga jare inuu ogolaado in laga jaro maxkamad la saaro laakiin iska socow dad baan laayay waxaan doonaan sameeyey ciidan baan laayay haddana iska soco anu waxaan u arkayaa khalad qarankuna waxa weeyaan sharci buu leeyahy sharcigaayna kala hagaan qofkii dembi galay in maxkamad la saaro sharciga haddii odhanaya marka waxaan leeyahay dadka u doodaya caare u doodaya waa dembiil caare waa dembiilo qaran oo weliba ku dhiiran hadda oo isla geesi baa tahay inuu dad laayay arrintaasina waa taa marka dadku haddaanu xaqiiqda aanu la fays karayn oon xaqiiqda laga leexleexdo dhibaatada ay leedahay waxaan leeyahay ciidamada idaga goostay dan idinma jirin ee xoolihiin bay cunayeen dagaal idinmay gelayn waxna idinmay tarayn kuwa noocaas oo kalena ha ka tagaan qaranka uma baahnayn 25 sanayn iyo sidaa ku soo jiray niman waxba tarayn iyaan meesha joogin taa carrana waa caynkaa oo ninkaasi hawsha waxaasoo danbiga sool buu dhibaato ka galay sanaag buu dhibaato ka badan ka geystay haddii lagu daayo oo geesi la yidhaho waa dhibaatadeeda leedahay yaa dembiilo noqonaya markaa kuma dembiilo noqonaya waa in equal loo haadaa sharciga iyo dastuurka waa in loo sinaadaa shirkayga jirayd wuxuu maagan yahay intaa weeye inaan dadka ka dhaadhiciyo inaanay ciidamadaasi kuwa wax u tara iyaga aan ahayn ninkaasina xaalkiisu caynkaa yahay waanad mahadsantiin